xitaa haddii aad lacag yar haysato waxaad bilaabi kartaa ganacsi online oo guuleysta. Assalaamu calaykum. Maanta waxaan ku hadli doonaa sida e-commerce aad u bilaabi karto adigoo aan haysan lacag badan iyo sirta guusha 2026. Waxaynu soo qaadanaynaa 3 qodob oo inaga saacidaya inaynu dhaqaale yar ku bilaabi karno ganacsi online. Qodobka koowaad waxa weeye bilow alaab yar. Ganacsiga ku bilow alaab yar ku bilow. oo waxa muhiim ah maadaama aad ganacsi bilaabayso inaad wax yar wax ku bilowdo wixii aad waxaad haysato ay ku goyso uma baahnid alaab badan inaad kaydiso waxaad bilaabi kartaa inventory yar ama alaab yar ayaad ku bilaabi kartaa ama dropshipping ku waxa weeye in aad tusaale AliExpress iyo shirkadaha waaweyn ee online-ka Alibaba laga leeyahay ama waxa la wadanka China laga leeyahay in aad waxa weeye alaabta aad kuwaas waxay sameeyaan wax la yiraahdo dropshipping waxay ku ogolaanayaan inaad alaabta aad hayso alaabta ay hayaan aad si iibin karto oo qofkii markuu iibsado iyaga alaabta u geynaya adiguna waxaad helaysaa marka commission baad helaysaa marka dropshipping oo kale iyaad baad ku bilaabi kartaa ama si kale aan u niraahno adoo dhulka Soomaalida jooga magaalada marka aad ku nooshahay shirkadaha ama ganacsiyada waaweyn ee ku yaal alaabta iibinayaan ayaa waxa leedahay alaabtaas ayaan si iibinaya waxaan rabaa inaad marka dabcan qiimahaas aad iga siisaan adiguna faa'iido saarsanaysaa tusaale shirkadaha iibiya wax la yiraahdo xarigjirada ama airportska dhagaha baad ka soo qaadan hadii airportka ay siiyaan $12 ama $10 ay siiyaan adigu $3 waa ku darsanaysaa $13 kala siinaysaa waad qaadi kartaa waa wareejin kartaa meelaha dadku u baahan yihiin baad geyn kartaa baadiyaasha oo kale aad geyn kartaa alaab marka tusaale cadaro alaab badan oo marka runtii magaalada laga yaabo in suuq badan ay ku lahayn baad intaad qaadad baadiyaha iyo meelaha dadku ay joogaan aad geyn kartaa si halka aad ugu iibiso taladu waxa weeye dooro alaab baahi badan leh oo qiimo jaban si macaamiishu ay si fudud ay wax kaaga iibsadaan tusaale dharka fashion-ka ah alaabaha yar-yarka ah iyo galalka telefoonada iyo waxyaabaha telefoonada loo isticmaalo sida shaashadaha runtii waa doq wanaagsan oo aad ku bilaabi karto muhiimadu waxa weeye lacagta yar aad heli karto ku bilow alaab yar waxaad sameyn kartaa si fudud Alibaba ama Shein ayaad alaab ka soo iibsanaysaa waxa laga yaabaa inaad $15 waxaad ku soo iibsan kartaa 30 saacadood ama 40 saacadood 40 saacadood baad si iibin kartaa dabcan magaalada aad joogto dad waxaad geynaysaa meelaha lagu iibiyo telefoonada wax la lagu alaabta lagu iibiyo ayaad geynaysaa markaad geysato tusaale qiimihii adigu aad ku soo iibisay qiimo yar baa saarsanaysaa qofkii ayaad ka sii iibinaysaa oo ay ku sii iibin adigu iyaguna dib u sii iibinaya marka adnagu waxa noqon kartaa supplier qofkii dadkii tusaalaan rabay inay sii iibiyaan inaad adigu ka iibiso lacagtaadina marka aad ka qaadato ama inaad waxa weeye ganacsi oo intaad online aad samaysato alaabtii aad xayeysiiso kadibna aad alaabtii sida lagaga iibsado marka muhiimadu waxa weeye alaab yar wax ku bilow qodobka labaad ee keenaya waxa weeye in dhaqaalaha yar wax ku taro waxa weeye suuqgeyn online samee xitaa adigoon haysan xayeysiin weyn waxaad bilaabi kartaa suuqgeyn online sirtu waxa weeye samayso social media marketing sida Facebook, TikTok iyo Instagram samayso noqo content creator ku soo gudbiyo YouTube iyo blog oo kala samayso macnuhu waxa weeye maadaama aad dhaqaale fiican aad haysan oo aad waxa weeye xayeysiin iyo aad ku samayn karto waxa samayn karta adiga YouTube baa samaysan kartaa Facebook baa samaysan kartaa TikTok baa samaysan kartaa cid kaama xigto marka YouTube iyo Facebook iyo TikTok aad samaysato oo ku koro alaabtaada aad ku soo bandhigto waxaad ku xayeysiin kartaa alaabtaada haysan linkiyada ayaad ku xayeysiinaysaa dabcan marka alaabtaada aad xayeysiin dad badan baa laga yaabaa alaabta inay ka iibsadaan marka muhiim waxa aad social media marketing la samaysato oo aad runtii alaabtaada aad soo bandhigto taladu waxa weeye samee content xiiso leh oo xal u ah dhibaatooyinka marka macaamiishu ay alaabta u iibsanayaan taasi waxay keenaysaa inay dadku ku kalsoonaadaan oo iibsadaan alaabta marka aad hayso marka muhiimadu waxa weeye suuqgeyn online samee xitaa adigoo aan lacag haysan inaad baraha bulshada samaysato alaab maalin wax soo post garayso alaabtaada aad ku soo xayeysiiso halkaas adigoo aan kharash ka bixin in alaabta aad hayso laga iibsan karo qodobka saddexaad ee muhiimka waxa weeye ku tiirsanaan joogto ah guusha e-commerce ma timaado habeen kaliya waa inaad joogtaysaa horumarinta inaad dib u eegis ku samayso alaabta iyo qiimaha alaabta aad ku iibinayso la socoto alaabta isbedelka suuqa leh inaad la socoto inaad horumariso macnaha adeegida macaamiisha taasi waa muhiim talada ugu muhiimsan waxa weeye dulqaadku waa furaha guusha haddii aad joogtayso xitaa bilowga ugu horeeya ayaad lacag badan samayn kartaa macnuhu waxa weeye
si kasto ama waxa haw yaraadaan ama haw bataane muhiimadu waxa weeye wixii inaad sii joogtayso haddii aad tusaale aad maalin walba aad wax soo aad waxa weeye alaabtii aad baraha bulshada ku soo bandhigto mar kasto aad wax soo post geliso mar kasto dad badan oo cusub ay ku bartaan alaabtaadina marka aad runtii suuq aad u hesho marka macnuhu waxa weeye ganacsiga e-commerce maanta bilaabay maanta faa'iidaya baan wuxuu kaga baahan yahay joogtayn inaad joogtayso inaad waqti geliso inaad waxa weeye alaabta aad balkayso oo aad mar walba aad maskaxda ku hayso in aad sidii aad horumar u sameyn lahayd sida darteed sirta guusha e-commerce adigoon lacag badan haysan waa inaad alaab yar wax ku bilowdo suuqgeyn online samayso sidoo kale aad dulqaad aad samayso taasi marka waxa ka saacidaya marka inaad samayso ganacsi marka guuleysta haddii aad jeceshahay casharo noocana like noo saar subscribe saar sidoo kale noo share garee si aad u hesho tulooyin kale oo ku saabsan e-commerce iyo sida dabcan loo sameeyo ganacsi online sidoo kale waxaan ku haynaa koorso lagu baranayo sida looga soo adeegto Alibaba iyo Shein iyo sida loo sameeyo xayisiinta baraha bulshada haddii aad koorsada doonaysaan runtii nala soo xiriir aad iyo aad baa mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.